kani waa imtixaan gaar ah oo lagu qabto dugsiga wanaaga iyo xumaanta. Gabadhu si fudud ayay u dhoola cadaysay muraayada xidig dahab ah oo dhalaalaysana waxa ay ka soo muuqatay korkeeda, taas oo muujinaysa inay ka gudubtay imtixaankii. Laakiin dhoola cadayntii Lily aad bay u fool xumayd oo qiiq madow oo leh xarafka F ayaa isla markiiba kor ugu kacay madaxeeda, taas oo muujinaysa inay dhacday imtixaanka. Waxaa la sheegaa in ardayda 3 maado ka dhacda ay u bedeli doonaan xayawaan. Markii hore ma aysan rumaysan sababtoo ah kani waa machadka sixirka ugu naxariista badan adduunka. Laakiin kadib markii ay aragtay Jack oo ka dhacay 3 maado, waxaa si naxariis darro ah u qaaday duufaan, waxaana uu qaylo xanuun badan kadib u baabay jajabyo hawada galay. Kaliya markaas ayay Lily ogaatay dhinaca mugdiga ah ee machadka wanaaga. Laakiin markii ay u dacwootay macalimada, waxaa loo sheegay in qawaaniinta dugsiga aan la bedeli karin. Fasalkii sixirku wuxuu u socday sidii caadiga ahayd. Casharkani wuxuu ku saabsanaa adeegsiga xayawaanka yaryar si loo xaqiijiyo rabitaanka. Gabadhii ugu horeysay waxay u tagtay xeebta harada. Waxay si fudud farta ku riday biyaha, kalluun yaryar ayaana isla markiiba isku bedelay sawirkii wiilkii ay jeclayd, isagoo u ballan qaaday jacayl. Markay taas arkeen, gabdhihii kale waxay ku ordeen inay isku dayaan. Kaliya Lily ayaa ku sii luntay fikradaha aayihii xumaa ee Jack. Markii ay iyada noqotay, waxay samaysay rabitaan iyadoo rajaynaysa in qof kasta uu gurigiisa ku soo laaban karo. Isla markiiba kalluunkii yaraa ee biyaha ku jiray wuxuu sameeyay goobaabin, isagoo ku wareegay gacanta Lily. Iyadoo ay ku indhasar caadsan yihiin kuwii kale, kalluunkii wuxuu isku bedelay qof bini'aadmi ah. Lily si tartiib ah ayay uga soo saartay biyaha. Waxaa soo baxday in gabadhaasi ay ahayd ardayad fashilantay qarni ka hor oo lagu xidhay biyaha si ay u fuliso rabitaanka dadka kale. Lily waxay ahayd qofkii ugu horeeyay ee xorriyadeeda u rajeeya gabadhan. Kadib markii ay muujisay mahadnaq, gabadhii waxay isku bedeshay boor dahab ah oo cirka u duushay. Arrintani waxay si qoto dheer u dhaqaajisay macalimadii sare. Waxaa soo baxday in machadka wanaaga uu muddo dheer lumiyay naxariistiisa dhabta ah, isagoo noqday meel isyeelyeel ah. Oo isla markaas Lily waxa ay muujisay awoodda ugu weyn ee naxariista. Waxay si sax ah u tahay tayada uu kuliyadda wanaagu raadinaysay. Marka la barbardhigo waxbarashada isyeelyeeli ah ee machadka wanaaga, macalimada machadka xumaanta ee ka soo horjeeda aad ayay uga daacad badnayd. Waxay doonaysay in ardaydeeda ay muujiyaan dhinacooda ugu xun. Kii ugu horreeyay ee la soo wacay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo xun. Waxa uu dhammaan tamartiisii geliyay inuu isku bedelo, laakiin waxa uu ku guulaystay inuu keligii soo saaro hal timo iyay ah. Macalimada ayaa si buuxda u niyad jabtay oo isla markiiba ka caydhisay. Kii labaad wuxuu ahaa farac ka mid ah saaxirad. Iyadoo indho roganaysa oo ay ku celcelinayso erayo sixir ah, waxay miiskii u bedeshay shukulaato, gabalba way ka jabisay oo way cuntay. Macalimadii way hadli kari weyday. Rajadii ugu dambeysay waxay ku dhacday Anna. Inkasta oo ay ku adkaysatay inay machadka wanaaga u dhalatay, macalimadu waxay ogeyd in hawsha loo xilsaaray machadka xumaanta ama wanaaga aanay marnaba khaldanayn. Anna waa inay leedahay xoog shar leh. Laakiin Anna waxay ku adkaysatay inay meel qaldan joogto, taas oo ka cadhaysiisay ardayda kale. Ajarine waxay go'aansatay inay cashar u dhigto. Waxay kor u qaaday timaheeda madow, waxayna soo bandhigtay tattoo shimbir xun oo qoorta ku yaala. Isla markiiba tattoogii ayaa noolaaday, waxaana uu ka soo baxay maqaarka Ajarine. Iyadoo ay Anna naxsan tahay, shimbirtii xunayd ayaa ka soo kacday dhabarka Ajarine oo ay ku booday iyada oo la amrayo. Anna oo argagaxsan ayaa nolosheeda u carartay. Markii ay shimbirtii xunayd si aan naxariis lahayn u eryanaysay, ma aysan haysan wax kale oo aan ahayn inay xoog ku dharbaaxdo. Isla markiiba wejigii Ajarine wuxuu ka gubtay xanuun, isagoo aad u cadhogeliyay, taas oo keentay inay mar kale soo wacdo shimbirtii xunayd, iyadoo go'aansatay inay Anna gubto iyadoo nool. Iyadoo qof kasta daawanayo, Anna waxay kaliya ku qaylin kartay caawimaad daaqada agteeda ah. Isla markiiba xashiishaduhu waxay burburiyeen daaqada oo ay ku duubeen shimbirtii xunayd. Si kasta oo ay Ajarine isku dayday, kama soo bixi karin xashiishadaha. Kadib qaniinyo isdaba joog ah, Ajarine ugu dambeyntii waxa ay miyir beeshay, iyadoo dhulka ku dhacday iyada oo gariiraysa. Macalimadii ayaa si degdeg ah u tidhi Anna jooji. Anna oo jahwareersan ayaa amar siisay xashiishadaha. Waxayna la yaabtay inuu shaqeeyay. Xashiishaduhu waxay isla markiiba joojiyeen weerarkoodii oo ay ka duuleen daaqada. Runtii hawsha loo xilsaaray machadka xumaanta ama wanaaga marnaba ma ahayn mid qaldan. Kaliya markaas ayay Anna ogaatay in muuqaalkeeda quruxda badan iyo midka jilicsan hoostiisa ay ku jirto awood xun oo aad u cabsi badan.